halkan waa Somkanada TV kulanti wanaagsan daawadayaasheena qiimaha badan wararka caawan idin hayna kuwada ugu waaweyn waxa kamid ah farmaajo iyo Fahad Yaasiin oo dejiyay shirqoolkii ugu weynaa ee la rabaan Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo Soomaaliya kala saftay dawladda Djibouti ciidamada Puntland iyo maleeshiyaad ku dagaalamay magaalada Garowe iyo doorashadii golaha shacabka oo isku bedeshay gacantaag iyo tartan la'aan kuraas lagu doortay magaalada Muqdisho qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idinku haynaa balse marka hore aanu ku bilowno farmaajo iyo Fahad Yaasiin oo dejiyay shirqoolkii ugu weynaa ee la rabaan madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe maqaal lagu daabacay wargeyska The Star ee ka soo baxa dalka Kenya maanta Sabti ayaa waxa ciwaan looga dhigay isafgaran waa ka taagan doorashada Soomaaliya kadib dib u dhac ku yimid 25 Febraayo 2022 oo lagu ballamay in la soo gabagabeeyay ayaa lagu yiri warbixinta ciwaankeeda marka loo eego madaxda Soomaalida oo bishii hore ku heshiiyay shir ka dhacay magaalada Muqdisho ay isku waafaqeen in doorashada Soomaaliya lagu soo gabagabeeyo 25 Febraayo iyadoo doorashadii ay socoto ayaa haddana waxaa wargeysku uu sheegay inay jiraan siyaasiyiin ka soo jeeda Jubbaland oo maleeshiyaad qoranaya si ay u burburiyaan maamulka uu hogaamiyay Axmed Madoobe ila wareedi ka gaabsaday in magacooda la shaaciyay ayaa wargeyska The Star u sheegay in 3 bishii Janaayo magaalada Nairobi kulan ay ku yeesheen siyaasiyiin oo hogaaminaya wasiirkii hore gaadiidka duulista iyo hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar halkaasi oo shirqoolka Axmed Madoobe ay ka soo saareen wargeyska u muuqday inuu xog ka helay siyaasiyiinta shiray saraakiisha dawladda Soomaaliya iyo xubno kamid ah maamulka Jubbaland ayaa waxa uu sheegay in shakhsiyaad uu ku jiro Cabdi Cali Raage la taliyaha madaxweyne Farmaajo ee dhinaca arrimaha doorashooyinka uu qayb ka yahay siyaasiyiinta mucaaradka ee Axmed Madoobe qorshaha uu dejiyay ayaa lagu yiri qoraalka wargeyska hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe oo dhawaan tagay magaalada Nairobi isla markaana siyaasad ahaan saaxiib dhow yihiin dawladda Kenya ayaa ka soo horjeeda in madaxweyne Farmaajo mar kale loo doorto xilka madaxweynaha Soomaaliya xogta wargeyskan Kenya ka soo baxday oo maanta Sabti lagu shaaciyay ayaa lagu sheegay in sharci darro ah la doonayo in Kismaayo laga dejiyo si maamulka Axmed Madoobe lagu burburiyo waxa soo ifbaxaya khilaaf u dhexeeya dawladda Soomaaliya iyo Jubbaland gaar ahaan kadib markii Axmed Madoobe loo doortay madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland bishii Agoosto 2019 doorashadaasi oo ay qaadacday fila Soomaaliya balse markii dambe heshiis la gaaray ay ku ogolaadeen in Axmed Madoobe 2 sano si ku meel gaar ah u sii hayo xilka beesha caalamka oo si weyn u maalgelisay hanaanka siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyadoo cadaadis ku saaraysa dhinacyada ay khusayso in doorashada Soomaaliya lagu soo gabagabeeyo 25 Febraayo Mareykanka UN-ka African Union iyo IGAD ayaa cabsi ka qaba xasiloonida dalka Soomaaliya iyagoo ka digay in doorashada waqtigeeda lagu qaban waayo waxayna sheegeen in ka dhalan karto qalqal siyaasadeed oo aad u weyn ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Kiki ayaa Arbacadii kulan magaalada Muqdisho kula qaatay Axmed Cawil Warsame oo ah gudoomiyaha cusub ee guddiga xalinta khilaafaadka Soomaaliya waxayna ka wada hadleen dardargelinta arrimaha doorashada sidoo kale waxay si gaar ah uga hadleen sidii loo ilaalin lahaa qoondada haweenka ee 30% warkan cusub uu daabacay wargeyska The Star ee ka soo baxay dalka Kenya ma jiro mas'uul ka hadlay oo ka tirsan Jubbaland kana warbixiyay xogta ay sheegeen siyaasiyiinta lagu eedeeyay inay ku howleeyeen duminta maamulka Jubbaland siyaasiyiinta lagu eedeeyay inay Jubbaland duminayaan waxaa kamid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo la taliyihiisa amniga qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir Abiy Ahmed oo Soomaaliya kala saftay dawladda Djibouti ayaa looga adkaayay tartan Khamiistii ee gashay kamid noqoshada golaha ammaanka nabadda midowga Afrika kadib doorasho magaalada Addis Ababa ka dhacday Soomaaliya ayaa kula tartantay kursigaasi dawladda Djibouti waxaana Soomaaliya heshay 19 cod halka Djibouti ay heshay 13 cod kursigan ayaa Djibouti waxay ku fadhin doontaa ilaa 2025 hase yeeshee codeynta waxaa ka soo baxday arrin yaab leh kadib markii Itoobiya u codeysay Djibouti mana kaliya in Itoobiya ay u codeysay Djibouti waxay sidoo kale u gashay oo la xog oo dalalka kale ay taageero uga raadisay madaxweynaha muddaxileedkiisa dhamaaday ee Soomaaliya ayaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed wuxuu ugu yeeray walaalkiis waxaana dawladda federaalka Soomaaliya marar badan Itoobiya ay ku garab istaagtay maslaxado caalami ah waxa ugu dambeyntii Soomaaliya ay ka soo horjeestay codeynta golaha xuquuqda aadanaha qaramada midoobay u qaadeen ansixinta abuuritaanka guddi khubaraha oo caalami ah oo baaritaan ku sameeyay tacadiyada iyo xuquuqda aadanaha ee dawladda Itoobiya ka geystay Tigreega wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdisaaq ayaa sidoo kale dhawaan sheegay in Farmaajo uu diiday in diyaarad militari oo Masar ay leedahay oo gargaar caafimaad u soo qaadi lahaa Soomaaliya isagoo ka cabsi qabay in Abiy Ahmed uu arko in xulafo siyaasadeed ay yeelanayaan Soomaaliya iyo Masar haddii Farmaajo uu gaaray in xitaa gargaarkii Soomaaliya uu diido cabsi uu ka qabo Abiy Ahmed iyo inuu lumiyo saaxiibtinimadii Abiy Ahmed kama gaban inuu eego danta dalkiisa una taageero Djibouti
Jabuuti iyo Itoobiya waxaa ka dhexeeya xiriir wanaagsan iyadoo inta badan badeecadaha dalka Itoobiya la geeyo ay kasoo degaan dekedaha Jabuuti. Sidaas daraadeed Abiy Axmed wuxuu Jabuuti u arkaa inay uga muhiimsan tahay Soomaaliya. Sidaas daraadeed Abiy Axmed wuxuu eegtay dantiisa. Su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay danta Abiy Axmed iyo Itoobiya oo hayaan Soomaaliya ee farmaajo mar walba u garab taagan yahay ciidamo maleeshiyada ciidamada Puntland oo ku dagaalamay magaalada Garowe. Faahfaahin dheeraad waxaa laga helayaa khasaare ka dhashay dagaal xalay saqdhexe ka dhacay magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal kaas oo u dhexeeyay ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Puntland iyo rag hubeysan oo ka ganacsada maandooriyaha gaar ahaan khamriga. Isasaaseynta oo xoogeeda ka dhacday agagaarka buundada dhinaca bari ee xigta magaalada Garowe taasoo laga maqlay inta badan xaafadaha magaalada Garowe. Sidoo kale dadka deegaanka ayaa waxaa soo wajahday cabsi xoogan maadaama ay saameyn ku yeelatay isasaaseynta labada dhinac oo ku soo aaday xilli habeen ah. Taliyaha qaybta booliiska gobolka Nugaal gaashaanle sare Ilyas Isaaq Maxamuud ayaa ka warbixiyay iskahorimaadka dhex maray ciidamada ammaanka iyo ragga hubeysan. Wuxuuna shaaciyay in ciidamada booliiska howlgal ku jiray ay rasaas ku bilaabeen rag hubeysan ciidamada dowladuna iska caabiyeen rasaasta sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale waxa uu intaas ku daray in khasaare uusan geysan isla markaana ay gacanta ku dhigeen qaar ka mid raggii hubeysnaa. Ugu dambeyntii taliyaha ayaa carabka ku dhuftay inay tallaabo adag oo sharciga waafaqsan ka qaadi doonaan kooxaha ka ganacsada khamriga ee ku sugan magaalooyinka Puntland. Ay waxaa kusoo noqnoqday iskahorimaadada hubeysan ee u dhexeeya ciidamada ammaanka maamulkaasi iyo maleeshiyaad hubeysan ee ka ganacsada waxyaabaha ammaanka dooriya kuna sugan magaalooyinka waaweyn ee maamulkaasi. Doorashadii golaha shacabka oo isku bedeshay gacantaag iyo tartan la-aan kuraas lagu doortay magaalada Muqdisho. Waxaa magaalada Muqdisho maanta lagu doortay doorashada qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Doorashada golaha shacabka ayaa isku bedeshay gacantaag iyo inaan lagu tartamin iyadoo kursi kasta loo sharaxayo qof loo xiray iyo musharax lagula ballamay in tartanka looga haro kaasoo sharci ahaan markii doorashada bilaabato inuu istaago ka tanaasulaya tartanka. Ergadan waxay cod gacantaaga uga codeynayaan musharaxii kursiga loo xiray. Kuraasta mar loo codeeya ayaa sidoo kale kuwa lasii ogyahay natiijadooda oo inta badan dhammaadka natiijada isku mid oo musharaxa la wato uu ku helayo codad gaaraya 70 ilaa 90 ergo kursiga. Doorashada saddexda kursi ee ka mid ah kuraasta gobolada waqooyi ee Somaliland oo daqiiqado kooban qaatay ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana musharax kasta uu watay malxiis. Hoob 226 waxaa ku soo baxday Maryan Maxamed Ciise oo loo qaaday codka kalsoonida ah waxayna heshay 95 cod halka 3 qof ay ka aamuseen kadib markii ay tartan ka hartay musharaxii la tartamaysay Khadiija Cali Warsame. Kursiga Hoob 218 waxaa ku soo baxay Dr. Maxamed Cilmi Ibraahin oo cod gacantaaga ku helay 92 ergo halka ay ka aamuseen 6 ergo markii uu tartanka ka baxay musharax Cabdiraxmaan Cismaan Xuseen oo la tartami lahaa. Kursiga Hoob 270 waxaa ku soo baxay Cabdiwahaab Cabdi Cumar oo cod gacantaaga loogu qaaday ku helay dhammaan ergadii soo xaadirtay ee 97 ahayd markii uu tartanka isaga haray musharax Muna Axmed Diiriye oo la tartami lahayd. Doorashada waxay hadda isu bedeshay gacantaag iyo malxiis aan tartanka ka qayb gelin. Warkii oo aad kala socoteen Som Kanadana daawadayaal caawa naga intaas.